magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan iyadoo ay sheegeen saraakiisha ciidamada booliiska in gacan ku dhiglaha gacanta ay ku hayaan sidoo qodobkaas ay ku eegayso Maryan Maxamed Cali ciidamada booliiska magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay gacanta ku dhigeen in xalay xaaskiisa lagu magacaabay jiro Shukri Indhacad ku dilay Toorey kadib markii uu khilaaf soo kala dhaxgalay haweeneydan oo kamid ahayd ganacsatada qaadka magaalada Beledweyne ayaa la sheegay in saygeedu ku dhuftay Toorey isla markaana dhaawac culus oo gaaray oo ay u geeriyootay isbitaalka magaalada Beledweyne howlgal ay sameeyeen ciidamada booliiska magaalada Beledweyne ayaa waxa la sheegay inay gacanta ku dhigeen ninka oo isku dayay in uu baxsado maadaama falka dilka uu dad ku sugan magaalada Beledweyne ayaa raadiyo wadani TV waxa ay u sheegeen in haweeneydan la dilay saygeeda maalmihii la soo dhaafay oo ka dhex jira khilaaf xoogan aan weli la cadeyn waxa uu salka u hayo hayeeshe ugu dambeyntii sababay in uu dilo magaalada Beledweyne xarunta gobolka Hiiraan ayaa xalay ilaa saaki aad looga kamid ahayd ganacsatada magaalada Beledweyne uu geystay saygeeda kaasoo ciidamada ammaanka ay gacanta ku dhigeen Maryan Maxamed Cali raadiyo wadani TV Beledweyne